السلام عليكم مقارنة meel walba joogtiin oo markale muuqaal cusub ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta kulamadii laga ciyaaray horyaalada waaweyn Man City oo guul gaartay xilli Rodri oo roose qaatay maqlaanayana kulanka Arsenal Bayern oo guul gaartay Harry Kane oo dhaliyay hat-trick-giisii ugu horeeyay Milan oo guul cariiri ka gaartay Verona haddii aan muuqaalka channel garay kanaalka subscribe noo sar haddii aanu ku bilownana kulamadii la ciyaaray kulanka ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa kii ka dhacay garoonka Etihad Stadium kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa soo dhaweysay Nottingham Forest kooxda dabka yar anshideedina ee Nottingham ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigtay garoonka Etihad walow kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 3 jeer oo xiriir horyaalka ku guuleysatay ee awoodeedu tahay mid aan wax laga qaban karin ee soo horjoogsan kooxda kubadda cagta ee Nottingham 7 daqiiqo ciyaarta markii mareysay Phil Foden ayaa kubadda wax kala ah ciyaarta gool iyo waxba kaga dhigay kooxda kubadda cagta ee Man City tiirna ku xirxiray kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest laakiin 14 daqiiqo kadib adiga daqiiqadii 14aad 7 daqiiqo kadib ciyaarta waxaa la eber ka dhigay goolkiisii 8 horyaalka la dhaliyay Erling Haaland oo xil ciyaareedkan ku jira xil ciyaareed kale oo cajiib ah oo fantastic ah ciyaartuna waxay noqotay mid 2-eber ay ku hogaamisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City qaybtii horena sida ayaa lagu kala nastay Man City oo 2 gool leh iyo Nottingham Forest oo waxba ah oo laakiinse cidiyaha ku dagaalamaysa qaybtii labaad dib markii la iskugu soo laabtay kooxda kubadda cagta ee Man City laacibkeeda qalbada dhexe kubadda ka burburiya Rodri ayaa casaan toos loo taagay kadib markii uu ceeji ku qabtay laacib kale yiraahdo Gibbs White kaasoo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest kadib markii mashaqo dhex martay laacibkan ayaa casaanka u qaatay waxay kaga dhigan tahay inuu sheegayo kulanka 8 October ee Arsenal iyo Man City ay wada ciyaarayaan kooxda kubadda cagta ee Manchester City laacibkan ayaa casaankaas si toos loogu taagay garoonkana laga saaray waliba laacibkan waliba waxa arkaysaa si uu ceejiyay ninka xatee inuu xoogaa ka soo kabsan waayo cabaaro unta heestiyo taagnaa warbalaayadu uu ceejiyay suxunbo ii galay laakiinse kaar qalqaalisku ciyaartooydu way ku dheereeyaan marka kooxda kubadda cagta Man City iyo Nottingham Forest ciyaar adag oo dagaal ku dhisan ayaa intii waxa ka dambeysay u dhaxaysay 10 ciyaartooy Man City ayaa ugu dambeyn guusha heleen Etihad Stadiumna ku adkaaday ficilkan uu sameeyay laacibka la yiraahdo Rodri waxa uu dadka soo xasuusiyay ficil hore uu sameeyay Casemiro ciyaar Man United iyo Crystal Palace u dhaxaysay markaas uu cijiyay laacib ka tirsan Crystal Palace labada ficil ayaa ah laba ficil oo isku siya ama isku cayna marka loo eego si qaabka ay wax u wada dhaceen Casemiro ayaa ninka ciiji dhab ku siiyay halka Rodri oo ninkan isaguna dhab ku siiyay marka labada nin ee dilayaasha qalbada dhexna kubadaha ka burburiyo isku si ayay wax u galiyaan waa majaxjaxyaal caadiyaba markan waxaan eegaynaa kulamada kale la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee AC Milan ayaa gool iyo waxba ka gaartay Verona ciyaar ku soo dhamaatay 1-eber goolkana waxaa dhaliyay laacibka lagu magacaabo Leo oo kooxda kubadda cagta ee AC Milan sida guusha farta uga saaray horyaalka Bundesliga waxa ciyaartay Bayern Munich oo kooxda Boch la yiraahdo iyadoo 7 gool ku xaaqday kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich waxay u kufaa iyagu dusha ayay wax u saarayaan dhagax weyn waxay leeyihiin hore u sii qaata kana marka iyagu cidna uma naxariistaan cidda u kufta way ku burburiyaan way toos u xabaalaan oo iska dhimay dhahan adigu marka Harry Kane ayaa dhaliyay hat-trick-giisii ugu horeeyay ee Bayern Munich isagoo laba caawin sameeyay marka 7 gool ay ku adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich haddii aad muuqaalka channel garay kana subscribe noo sar goodbye